waxaan ku bilaabayaa Suhayb Cabdiraxmaan oo nooga sheekayn doono suugaanta Soomaalida. toos baan u bilaaban doonaa. shinito kamerada soo socda waxaan ka hadli doonaa ciwaan mawduuca aniga ciwaan dhigay suugaanta Soomaalidu go'doonka ma ka bixi kartaa. sida la sheegay ciwaankeena si guud Soomaali literature kan kaalinayo suugaanta Soomaalida, laakiin anigu waxaan ka sii eegi doonaa ciwaan gaar ah baan sii doortay oo ah Soomaalida suugaanta Soomaalidu si ay uga bixi kartaa go'doonka. marka bilow ahaan ay assume waxaan ka soo qaadayaa ama iftiraad baan ku dhisayaa in suugaanta Soomaalidu ku jirto go'doon ama ay cuslo ku jirto. cuslada baan sharxi doonaa waxa keenay iyo sida uga bixi karto. bilow ahaan haddaan ku bilaabo asam muqaddam ahaan ama introduction ahaan, suugaanta Soomaalidu waxay taariikh ahaan waxay ahayd tixya tiraab, laakiin imaatinkii isticmaalka ayaa wax ku soo kordhiyay oo wax ka bedelay oo waxaan modern literature ka la yiraahdo ama suugaanta cusub ee adduunyada saameyn weyn ama qaabeyn weyn ku yeeshay. tixda iyo tiraabta Soomaalida waxay ahayd tixdu waxay ahayd waa gabayga iyo qaababkan maansideen garayno geeraarka iyo heesaha iyo waxa la midka iyo buraanburka iyo waxyaalaha la sii midka ah. tiraabtu waxay ahayd waxyaalaha aan wasniga iyo habdhaca aan lahayn sida gogaaleysiga ama korban qaadamiya gogaaleysiga ama mahmaahooyinka iyo halxidhaalaha iyo waxyaalaha la midka ayagu aan lahayn habdhaca sida gabayga iyo geeraarka iyo lagu yaqaan aan lahayn. laakiin imaatikii isticmaalka adduunyada saddexaad ama adduunyadan isticmaalku saameeyay ama qabsaday waxay keentay in suugaantana ay ku timaado yani isticmaalku una ahayn un mid siyaasadeed mid dhaqanna uu ahaa oo suugaanta ay wax ku soo biireen. waxyaalaha ku soo biireen markaa waaweynaa wuxuu ahaa waxa masraxa la yidhaahdo, novelka ama sheekafaneedda waxa la yidhaahdo, wax novella la yidhaahdo oo sheekafaneedda iyo short storyda u dhaxaysa iyada iyo novelkana ka yar ama sheekafaneedda ka yar, short storyna ka dheer oo ilaa 80 page 90 page meelahaas ilaa imka inaan aqoonin inagu iyo meelheedna aan lagu aqoonin. laakiin adduunyada isticmaalku gumaystay suugaamaheeda oo dhan saameyn ku yeeshay sida tacarabtoo kale. iyada masraxa naqdiga gabayga isugu already waan sii lahayn waan sii haynay, laakiin gabayga laftigiisa in adduunyada kale wax ku soo biiraan markasta suugaantii reer Yurub laga tusaale qaato oo qaabkeedii la raaco. laakiin suugaantaas ama qaabka uu dhigay isticmaalku ugu talagalay inuu saameeyo suugaamaha adduunyada ama uu qabsado suugaamaha adduunyada may dhicin may suuragelin halkeenna marka la joogo sida waxyaalo badan oo kale aynan u suuragelin xadaasada Soomaalida waxyaalo kale badan ba aynan uga hirgelin sida tan siyaasadda iyo dawladnimadu unbay taasina qayb ka tahay. laakiin ma diidaysa taasi inay saameyn ku keentay wixii ay Soomaalidu suugaan u taqaanay. marka waxaan doonayaa inaan afar qodob si degdeg ah isku dul istaago anigoo waqtiga ka faa'iideynaya. waxa koowaad ee saameynta ku keentay waxa weeye qeexidda suugaanta laftirkeeda. laba qarni ka hor haddaynu dib u noqono suugaanta Soomaalida la iskuma khilaafi karaynin in la qeexo maxay ahayd wax af Soomaali ku qoran tixya tiraabtana soo hoosgalaya. laakiin imika su'aalo badan ma ka dhalan karaya maxaa suugaan loo yaqaanaa ma wax kasta oo Soomaali qortayba ma suugaan kasta oo Soomaali qortayba ma suugaan kasta oo af Soomaali ku qoranba mise waa suugaan kasta oo Soomaali ka hadlaysa. بمعنى ما وحنا رعنا موضوع هذا الصومالي كهذا وحنا رعنا وحوي وسوغان صوماليات مثلا أفكار رعنا يا وحي كل سنة أفكار صومالية بس سوغان نقنايا مثلا وحي صومالي ذكرته لغة دون طبعا كقرته وحنا سوغان تي صومالي ذكرته سيدا ده شيء كوين كنور الدين فرح نقانا وخلاص بس سوغان صوماليات بقى مثلا سوغان تي واحد عشان تي أفكار كقرنتي و أرمها أو مقرنة سا إسبدلة ذي مي سوغان الصومالي وكيم أرين لبعضه كاسي دبي يلون دوننا رايا وحيتها هاي سوغان تاسي إيه مثلثة سوغان تا عصبة الصومالي أزمة تمثيل representative كولي بقى إدوار سعيد وفهمي أيان دوني إن هذا كنا فعليه سوغان تزان أجن هاي وحويه وقاب كمينا قابك وحصوصار كعقونات ومض وحلاقة شيء ومض لغو فسيرة مركا suugaanta Soomaalida ee cusub ee afka doonta ku qornaatay ama Soomaaliha qorto ama Soomaaliha laga qorabe yey matalaysa Soomaali ma matalaysa dhab ahaan
taa laftirkeedu waxa weeye waa arrin cusub oo ay keentay saameynta aan ka hadlayna suugaanta qabsashada suugaanta Yurub ay adduunyada kala qabsatay ay keentay. tusaale haddaan halkaas usoo qaato suugaanta Soomaalida haddaynu ku noqono mar labaad ee 2 qarni ka hor ama 3 qarni ka hor dabcan waxay ahayd wax mawaadiicda Soomaalida markaa khuseeyay suugaan ka hadlayso afkoodana ku qoran, laakiin iminka waxaa jirta suugaan ama dee novel ha noqoto ama gabay ama short stories waxa doonta ha noqote ee aan mawaadiic Soomaali aan dhaxoolin ka hadlaysa, ama mararka qaarkood waliba qaybta kasii khatarsan suugaanta ay qoraan dadka aan Soomaalida ahayn. Tusaalaha kale novelka la yidhaahdo Don't Tell Me You're Afraid soo baxay 2015 arrin Italiano Jose Costello la yidhaahdo qoray oo ku qoray inaad maqasheen ma filaya sheekada oo qoray Saamiya Cabdillaahi in la yidhaahdo oo orodyahan ahayd oo tahriib ku dhimatay 2012 laakiin novel wuxuu soo baxay 2016. sheekadaas oo kale Soomaali ma matalaysaa bimacnaa markaad akhrisid wax badan baa ugu tagaysaayo misleading iyo xoge khaldan oo magaranaysa Soomaalida laga bixinayo. Soo ahaan kale inuu laba reerood Muqdisho dega oo ka dhigo qaarna inay Carabi yihiin oo ay dabadeedna yihiin kuwa terroristiga iyo magaras argagixisada waxleynaya, kuwa kalena Afrikaan la leynaya ay yihiin. So waa arrin si daba yaala marka suugaantaasi maadaama cidda sameynaysa markasta cid magaranaysa ajandaheeda iyo waxyaalaha ay rabto maadaama suugaantu tahay qaab ka mid ah qaabka aqoonta loo soo saaray in uu shaqeynayso qaabkaas loo shaqeynayso. qaybta Soomaalida suugaanta ku soo saarta maxay ahayd afafka kale iyaga laftirkooda waxaa la faaleyn karayaa in mararka qaarkood ay ka duulaan inay raali geliyaan daaqiiqada ama dooqa luqadda cid wax ku qorayaan oo ninka English ku qoraana uu raali geliyo qaariga ama akhristaha af English wax ku akhriya, ninka af Carabiga wax ku qoraya Soomaaliga uu raali geliyo akhristaha af Carabiga wax ku akhriya. waxaan doonayaa inaan u sii gudbo wali waxaan sii daba joogaa qodobada ay isticmaalku keenay suugaanta isticmaalku ay saameysha ku yeelatay. number 3 waxaan doonayaa inaan tilmaamo suugaanta Soomaalidu ee cusub novelka iyo sheekooyinka gaabani way ka dib dhacsan yihiin kuwa kale adduunyada kale waliba adduunyada kale uu saameeyay isticmaalka turkiga ee taariikhda tusaale soo qaadano. marka taa waxaan ku fasiri karayaa inaan bilow ahaan waxaan dib dhacsan maha suugaanta Soomaalida ay wax weeye waa suugaantan uu keenay isticmaalku bimacnaa su'aashaas markaan isweydiino waxay la mid tahay inaan maxay u dib dhacday sheeko faneeda Carabtu waana su'aal iyaga laftooda dhex taala, ama sheeko faneeda Hindigu maxay u dib dhacday maaha bimacnaa suugaantii Hindiga u dib dhacsan maaha waxa weeye waa qayb ka mid ah oo isticmaalku ku leeyahay qaabeynteeda iyo saameynteeda iyo keenitaankeedaba isticmaalku lahaa. laakiin halkeenan xaaladdan Soomaalida suugaanta Soomaalida ee cusub maxayna u hana qaadin waxaan tilmaami karayaa dhowr arrimood ay ka mid tahay inagoo bilow aan lahayn taqaaliid qoraal aan lahayn oo bimacnaa ka go'an turaaskeenii hore iyo turaaskeenii suugaaneeda hore. waxaynu garan karaynaa si fudud in gabayga Soomaaligu uu la fac yahay gabayga Carabta adduunka kaba taariikh dheerayn, laakiin dama garanayno wixii lagu gabi jiray raago xagga kooban oo raago ugaas ama wiilwaal loo nisbeeyo ayaa la yidhaahdaa ayaa iminka waxa ugu taariikhda fog ee lahayd gabayga Soomaaliga uu yahay. marka qoraal la'aantaas iyo diiwaangelin la'aantaas waxay keentay inaan ka go'no turaaskaas qadiimka ahaa ee maxay ahayd dheeraaya suugaanteena hore aan ka go'no. iyo tixda laftirkeeda tix ahaan markay noqoto tiraabta laftirkeeda markay noqoto sheekooyin waxaan lahayn maxay sheekooyin dhaqameed xayawaano wada hadlaya iyo xikmada ku jiraan iyo murtile oo la mid ah sheekada Kaliila Wadumno kale oo kitaab aad u caansan oo dhawaan af Soomaali loo turjumay oo kitaab Hindiya ahaa oo dabadeed af Persian ama af Farisi loo turjumay dabadeed Carabi loo soo turjumay oo sida adduunka kale ugu sii faafay. kitaabkaas qiimo weyn buu imika adduunyada ku leeyahay, laakiin markaad akhriisi sheekooyinkiisa waxay aad u shabahaan sheekooyinkii Soomaalida ee maxay ahayd markay yar carruurta markay yar yihiin oo kale looga sheekeeyo ama de ku jira maxay ahayd ku jira dhaqan suugaaneedkeena ku jira. marka diiwaangelin la'aantaas waxay keentay in aanu heli kari lahayn buug la mid ah Kaliila Wadumno, laakiin imika xataa sheekooyin badan oo lahayn aan iska keen dhex galaan sheekooyinka kale ay leeyihiin ummadaha kale. waxaan doonayaa marka inaan kusoo gabagabeeyo
su-aal odhanaysaa maadaama ciwaankan anaga ciwaan dhigay soomaalidu sugaanta soomaalidu ma ka bixi karaysaa go-doonka sidee bay uga bixi karaysaa inaan soo aan ka bixiyo maxay ahayd ra'yigayga aan ka bixiyo waxaan isleeyahay laba qaab baa furan si ay sugaanta soomaalidu uga baxdo go-doonka mid waxa weeye in investment maskaxeed badan la geliyo sugaanta soomaaliga qoran inay qaababkan cusub ee novelka iyo sheekooyinka gaaban dabeedna ummadaha kale loo turjumo dabeedna xaggaas dee sugaanta soomaalidu magacayo ay ku lahaato maxay ahayd qadarin iyo maamuusid iyo ictiraaf ay ka hesho tusaalahaan soo qaadan karayna waxa weeye xaaladda carabta sugaanta carabta isku mid baan ka ahayn heerkan aynu sugaanta ka eegina marka laga eegayo ee novelka iyo sheekooyinka gaaban iyo gabayga iyo qaababkan cusub laakiin 1987kii nin la yidhaahdo najiib maxfuud ayaa ku guulaystay jaayisada nobel prize taasi waxay siisay in loo soo joogsado maxay ahayd adabka iyo sugaanta carabta oo xitaa ka dambeeya ay helaan ictiraaf ay ka helaan marka jidkaas waa jid inoo furan in investment badan iyo dadaal badan la geliyo af soomaaliga in lagu soo saaro maxay ahayd sheekooyin faneed iyo novels le tayo sare iyo maxay ahayd shuruudda ku qoran qaabka laskala yaqaan in novel loo qoro arrinta labaadaan isleeyahay iyaduna muhiimad bay ka qaadan karaysaa in sugaanta soomaalidu godoon ka baxda ama qadarin ka hesho oo adduunyada kale waxay tahay in la helo in la diiwaan geliyo sugaanta hore wixii laga helay ama wixii laga helayo dabadeedna la ururiyo oo ay dee noqoto turaas loo noqon karayo oo 10 sano kadib waa la ilaabi doonaa badda sheekooyinkan imika tukooga si gabaabsiga ah markaa si aan taasi u dhicin in la helo marjic ama source loo noqon karayo oo sugaanta soomaalida ee qadiimka weliba teeda tiraabta ee taxta labadaba ah wixii laga helayo la diiwaan geliyo halkan waxaan doonayaa inaan sheeko ku khatimo uu soo qaato maxay ahayd kaatib la dhahdo qoraal la dhahdo cabdilfataax kaliito wuxuu kaliito buugtiisa ka mid ah ku sheegayaa in ummad waliba ay isku qeexdo qoraal mucayana tusaale ahaan kale gareegu waxay isku yaqaanaan ama dee marka gareega dhaqanka gareega iyo sugaanta gareega marka lasoo halqaado magac soo baxa markaas boo la sheego waxa weeye nin la idhaahdo maxay ahayd Homerios oo ninka Iliada qoray sheekada caanka ah ingiriisku sugaanta ingiriis waxay isku taariifisaa ama isku qeexdaa Shakespeare Francisco Montaigne Germanku Goethe Spanishku maxay ahayd Cervantes ninkii qoray Don Quixote dadka qaar yidhahdaan waa novelkii u horreeyay lagu qoro maxay ahayd qaabkan cusub ee novelka loo qoray marka waxaan isweydiinayaa su'aala carabtu maxaa qoraagee soo baxaya marka sugaanta carabta la yidhaahdo qoraagee baa la xasuusanayaa sida sugaanaha kale reer galbeedkaas oo kale loo imanaya marka qofka hor imanaya maskaxdiisa marka natiijo wuxuu gaarayaa odhanaysaa inuunan ahayn qoraa inuun ahayn laakiin kitaab yahay kitaabkaas waxa weeye waa alf layla walayla oo ay cusuur badan la qorayay dad badan wax ku dareen oo soo magaranaysaa soo tadawuray samano badan iyo quruun badan marka waxaan doonayaa xaggaas ka weydiiyo qiimaha uu ku yeeshay alf layla walayla carabta imika ka dhex leeyahay iyo dee sugaanta adduunyada oo dhan ba ka dhex leeyahay Borges oo sugaanyahan weyn oo dee Spanish oo adduunyada caanuga ah wuxuu doonayay markuu dhintay wuxuu baranayay af carabiga soo indhala waliba soo taas u akhriyo maxay ahayd naski asliga hada ku qornaa alf layla walayla uu akhriyo afkiisa uu akhriyo marka qadarinta inta leeg waxay ku heshay alf layla walayla qarnigii 16aad ayaa nin Anton Galan loo dhanay uu turjumay af Faransiis tabayna markaas la yaabo la yiri sugaanta carabtu waa wax qaniyo oo magaranaysa hodan oo aad loo amaanay markaas ayaguna dareemeen inay leeyihiin buug ay ku faanaan oo ay wax soo saari karayaan marka hadaan ku khatimo su'aal odhanaysa Soomaaliya dhaqankeeda ama sugaanteeda yaa shakhsiga matalaya qofkayba marka sugaanta Soomaaliya dhahdo soo imaanaya wajahada waxaan baahanay inaan dadaalkaas kale inaguna galno in la ururiyo tatixdeena iyo tiraabteenaba sugaanteena la diiwaan geliyo ummadaha kale loo bandhigo loo turjumo markaas aynu garan karaynaa maxay ahayd qiimaha leedahay intaas baan ka baxayaa sahib aad u mahadsan tahay hal su'aal aan ku dhex gelin lahaa sugaanta horta si guud waa tixda iyo tiraabta ay u kala baxdaa dhalinyaro badan oo waxaa jiro waqtigan la joogo geliyay waqti iyo maskax sugaanta tixda ah inay maaragtay soo saaraan si guud Soomaalida waxay maaragtay sheegaan in dadkii hore ay ahaayeen wixii hore tagay inay qiimo lahaayeen tusaale ahaan oo kale sugaanta ama tixda ah dadka loo soo hadal qaado waxaa kamid ah Banadaraawi iyo ragga la midka
marka dhalinyarada marka haddeertaan jiilkan cusub ee suugaanta tirisa ma la dhihi karaa go-doonkii way ka saari karaan? horta go'doonkan ka warrameyna waxa weeye waa go'doon haystaa literatureka suugaanta soomaalida oo dhan weeyaan maxay dhalinyarta kuwaata kuma koobna waana markaan barbar dhigayno ummadaha kale ee aynu image weyn kusoo eegayno ama xagga sare kasoo eegayno waa run tixda soomaalida dee suugaanta soomaalida dee waxaa halbowla u ahaa ilaa imkana waa gabayga laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay inaynaan garanayn wixii lagu gebi jiray gabayga soomaaligu taariikh dheer yahay uu fac dheer yahay wuxuu soo jiray quruuno aad u dhaadheer dee inta soomaalidu waa jireen way gabayeen laakiin haddana ma garan karin wax lagu gabayey waxaanu garanaynaa waa qarnigii ugu dambeeyey maxtaa lasku haystaayo 70-kii laga yaabaa in la isdhaahdo hebel baa maasadaale laysku qabsado gabayaasha iminka jooga sidaad magacaad sheegtay oo kale waxaan isleeyahay go-doonka hadda kama saari karayaan waayo waxay ku xidhantahay in ay la turjumo waxoogan oo ummadaha kale go-doonka ka lahayna ma waxa weeye waa go-doon laba dhinacaba ah mid inaga haysta taariikhdeena hore inaan garanayno ka go-annahay aanu just garanayno inay jirtay laakiin aynaan garanayn wixii lagu gabeeyey wixii la lahaa midna waxay tahay in ummadihii kale aan ka go-annahay oo aan la isku tallaabin oo aynaan garanayn suugaamaha kalena uma soo golaan suugaanteennana uma gasho suugaamaha kale bimacnaa Shakespeare dee imika af cari baa lagu akhriyaa af Persian af Hindi af badan baa lagu akhriyaa laakiin haddana af Soomaali baa lagu akhriyaa marka mushkiladu go-doonka xaggaas ku taagan yahay dee go-doonkan wax laga baxayaa dee waxa weeye waa tarjumadaas aan sheegay aad iyo aad Suhayb waxaan usoo jeesanayaa dhankayga bidix waxaa fadhiya Zakariya Cali Maxamed mowduucu si guud wuxuu ku saabsanaa suugaanta soomaalida iyo sheekafaneedka Zakariya wuxuu maaragtay qaada dhigi doonaa sheekafaneedka taariikhdeedii iyo dadkii maaragtay magaca ku lahaa ama bandhiga u ahaa waxaan kusoo dhaweynayaa Zakariya. bismillaah dhammaan waa salaamantihiin mowduuca oo si guud ku saabsanaa Somali Studies macallin baarista Soomaalida iyo caawana si gaar ah looga hadlayo dhanka suugaanta waxaan rabaa intaan gudaha u gelin qaybta sheekafaneedka inaan wax yar isdultaag ku sameyno suugaanta Soomaalida iyo heerarka ay soo martay iyo noocyadeeda suugaanta Soomaalida marka la sheego si guud suugaanta waa labo waa mid ah suugaan oraaheed iyo suugaan qoraal wey marka Soomaalida tan ku badan fac badan soo jirtay waa suugaanta oraaxda ah oo heerar badan soo martay sida Suhayb ka dhawaajiyay lama garanayo xilliga ay soo bilaabatay waxaa laga yaabaa dadka qaar in ay maqleen raago ugaasa wuxuu yahay qofka ugu horeeyay gabay tiriyay ama la yiraahdo gabiga ugu horeeyay waxaa laga hayaa calmi jirteen in yiraahdo dhulka laakiin lama hayo raad ah wixii Soomaalida ka horeeyay ninka hal maalin kuma soo dhalan ka hor maxay ahaayeen maxay ku gabi jireen lama hayo taana waxa saameynta keenaya oo ugu weyn waxay weeye qoraal la'aanta Soomaalida ama Soomaaliga markii la qoray kadib inaan la isweydiin ka hor intaan Soomaaliga la qorin ka hor maxay ummadan wax ku qoran jireen oo raadkaas aan dib aan loo raacin xilliga marka laga soo tago oo goorkay soo bilaabatay aan la garanay xilligii ugu horeeyay suugaanta Soomaalida waxay ahayd mid reereysan oo markaan ka hadlayno suugaan raaheedka waxay mid reereysan oo reer walba wax ugu weyn waxay ahaayeen qaybta maansada oo inay gabyaan ah gabaygaasna waxay ku matalayeen reerka markaas ayaga ay ka soo jeedaan marka wuxuu ahaa hadda maanta meesha afheenka booska afheenka ayuu ugu jiray laakiin waayida dambe suugaanta waxay sameysay macna kale waxay noqotay suugaan qarameed ay noqotay oo heerka qabiil way ka soo baxday marka suugaantii qabaliga ahayd waxaan ka xasuusan karnaa suugaanyahanno badan oo hadda laga yaqaano oo kamid yahay Cali Dhuux Sanaa Carabey marka la fiiriyo suugaantooda loo saaran gubo kale marka la eego halkaas qaybtaas ay galaysaa qayb kala timid oo ah suugaanta Soomaalida oo heer qarameed ah markii isticmaalku uu dalka yimid kadib suugaanta waji kale ay yeelatay waxay noqotay mid guwaabo u badan oo wadanimada ay qaranka ka hadlaysa suugaanta marka dadku uga cadcada markii gabayada iyo la yiraahdo iyo iimaansada si guud waxay ahaayeen oo laga xasuusan karaa sayidka waxa laga xasuusan karaa Sheekh Axmed Bakar gabyo loo yaqaano oo dhulkan warshiiq iyo cadalle ka soo baxay oo taariikh badan laga heenin laakiin
markii dib loo raaco aa ogaanaysid inuu yahay qofka ugu horreeyey ee wadaniyadda ka gabya 1885 gabayo masafo uu tiriyay la helayo kadib markii dadkii ay wax barteen ilbax noqday waxaa la heli karaa dad badan oo suugaanta Soomaalida muuqday oo xaji aadan oo kamid yahay oo kamid yihiin tamacada kamid yahay kadib suugaanta Soomaalida markii la dowladoobay xillig ugu horeeyay marka laga reebo 60 ilaa 69 wali waxa ay suugaan wali hadlayso muuqata laakiin wixii ka dambeeyay kacaankii waxyaabaha laga hadlayay waxay ku koobnaayeen oo wax iska xadidan oo laga yaabo in caburin badan ay jirtay oo suugaanta markaas daa indhaha ku fiirisid wadaniyad iyo kuma badneen waxa laga yaabaa waxayna suugaan ka caameysan ahayd ama suugaan waxay ahayd jaceyl oo u badan taasna waxay keenaysaa caburintii jirtay oo kala keenaysay kadib markii burburka la galay suugaantii marka way leeyahay inay leeyahay waxa keenay waxa isbedelay jawigii ay ku nooleeda isbedelay marka ma aysan jaan qaadin marka halkaas laga soo tago oo heerarkaas ay suugaanta Soomaalida ay si guud u soo martay waxaa jira suugaanta in laba qaybood loo kala qaado suugaan ah mid hidda ah iyo suugaan casri ah suugaanta hiddada ah waxaa kamid ah suugaamaha murtida kamid ah maamaahda heeso hooleedka aan naqaano markii tusaale ahaan geel oo kale la dhaaminayo ama horta la rarayo iyo heeso waxa laga yaabaa ciyaareedka oo markii laga yaabo in ciyaarihii seeliyadii waxa la dheelayo kale in la adeegsado waxaa jira sidoo kale sheekooyin hideed ah oo halkaan ay ka soo galayso sheekooyinka aan naqaano sida Arweelo iyo Igaal Shiidaad iyo Dhegdheer iyo sheekooyin hidda ah waxaa jira sidoo kale marka sheekooyin suugaanta hiddada ah ayaa nooc la yiraahdo suugaantan hidda waaye marka inay hidda tahay maxaa lagu garanayaa waxyaabo lagu garan karo waxa kamid ah horta waa fac ka fac waa meel loo raaco tusaale ahaan qofka tirisay iyo waqtiga la tiriyay iyo sheekadan goorkay soo baxday lama garanayo waxa ka wada qayb qaadanaya bulshada qof walba laga yaabaa inuu wax ku darsado waxay u badan tahay maaweelo iyo murti yar xambaarsan ay u badan yihiin sheekooyinkaas marka fiiriso suugaanta hidaha marka sifaadkaas ay leedahay waxa jirta suugaanta casriga ah suugaanta casriga ah waa mid la jaan qaadayso hadda horumarta ay ilbaxnimada dunida waxay u badan tahay suugaan qoraaleed ay u badan tahay waxaa la garanayaa xilligii la sameeyay iyo cid sameysay oo kale waa la og yahay bulshada sida tii hore qofba waxba kuma darsanin laakiin waa qofkii alifay hebel ayaa loo tirinayaa tusaale waxay u badan tahay suugaanta casriga ah murti iyo fikraday xambaarsan tahay oo waxa ku laran wax yar oo ah iska maaweelo marka Soomaalida marka la yiraahdo si guud waxyaabaha ay ku xoogan tahay marka waa suugaanta midda ah hiddaha midda ah weey waxa Soomaalida ka maqan oo aysan boos ku lahayn suugaanta casriga ah taasna marka su'aal markaas halka waxay imaanaysaa su'aashu say isweydiinaa oo go'doonka marka suugaanta ay ku jirto waxa keenay wax ugu sababta ugu horeysa waa qoraalkii qorista af Soomaaliga oo soo daahday taas wax weyn ay ka tahay in suugaanta Soomaalida ay la jaan qaadi weyso suugaanta casriga ah inay la jaan qaadi weyso qayb weyn ay ka tahay marka si guud suugaan markaan isduldaagkaas ku sameeyo waxaan rabaa inaan u soo daadego qaybta hadda mawduuca xiisaha gooni oo la sheeka faneedka sheeka faneedka Soomaalida marka aan intaanan u soo gelin sheeka faneedka si guud waxay ku bilaabatay waagi ugu horeeyay markii bini'aadamkii ay ahaayeen dadka ku noolaa boholada ay halkaas ay ka soo tixraacaysa waxay ahaayeen dadku markii duurka la aado qadhabsiga la aado laga yaabo in habeenkii la isku soo guriyo noqdo ee boholada la soo galo ee dabka la shito dadkii dabka ku hareereystaan ayaa qofba wuxuu ka sheekeyn jiray wixii uu maanta la soo kulmay oray wacaal ayaa la isweydaarsan jiray wixii la soo arkay marka waxyaabaha dhaxalgalka ah ee xasuusta gaarka ah yeesha ayaa wixii noqon jiray sheeko kuwaas marka waxa loo soo gudbin jiray faca ka dambeeyo soo gudbin jiray marka sheekada
asal ahaanteeda halkaas ayay u noqonaysaa. Marka waxaa la arkaa markii laisku soo gudbinayo si marka qaar xiiso loogu yeelo qofba inuu wax ku daro oo si micno iyo dhadhan u samayso. marka qaar waxyaabo maaweyle ah in lagu daro, marka qaar wax oo lagu daro sheekada qofka ama kaa gelinayo. marka sheekada markaas inta xiiso sii yeesho oo jiilba dambe uu u sii gudbiyaa. markaas waxay noqotaa sheeko la keediyey. marka sheekooyinka taasaa waxay keenaysaa marka sheekada in laba ay noqoto, inay noqoto sheeko markii dambe marka waxaa caadi noqotayba in sheeko aan jirin lama la awaalo. marka hore dhacdo oo qofku uu soo arkay ahayd, laakiin qofka si uu dareen u muujiyo waxaa ku filnaan waayo joogiisii. markaas waxaa laga yaabaa wax uusan arkin inuu inta mala awaalo. markaas sheekooyinka fictionka ama mala awaalka ah halkaas ayay ka soo galayaan. marka Soomaalida marka la yimaado sheekooyinka hidada ah waxaa laga yaabaa in cigaal shidaad sheekooyinka hadda aan maqalno inay dhacdo jirtay ee ahayd oo hal sheeko amba hal qisooyin badan oo hadda leeyahay cigaal shidaad oo fulinimada loogu soo qaato. waxaa laga yaabaa mid kamida inay saxnimadeeda sax ahayd, inta kalena si xeeso u sii yeelato qofba maalin mid intuu mala awaalay oo u saariyay cigaal shidaad. marka waxaa kamid ah sheekada Carraweel oo kale. waxaa laga yaabaa in ay tahay sheeko yar si u dhacday tuulo amba wax, laakiin markii dambe la buunbuuniyo wax badan lagu daray. markaas ay micnahaas kale ay sameysay. sheekooyinka waxaa kamid ah sheekooyinka hidaha ah, sheeko xariireedka oo si rasmi ah ugu dhadhansan kartid in ay tahay sheeko mala awaal ah. oo tusaale ahaan xayawaanaadka marka qaar in laga hadashiyo oo door ay sheekada ku yeeshaan oo kale ah caruurta lagu maaweelin jiray. marka sheekooyinka aan ka soo tagno aan nimaano sheekada casriga ah oo suugaanta casriga la jaan qaadaysa, Soomaalida lama hayo sheekooyin rasmi ah oo wixii ka horeeyay isticmaalka oo qoran oo Soomaali leedahay amba luqad kale ku qoran amba ku qoran af Soomaali lagu qoray far Carabi oo kale Soomaalida aad u isticmaali jireen. marka si aan isku dul taagno suugaanta ay sheeko faneedka qoran ee casriga ah waxaan u baahnaanay in aan isdulta ku sameeyno qoristii far Soomaaliga. marka Soomaaliga marka laga reebo waxyaabo oo taariikhaha qaar ay xusayaan sida Axmed Cabdan Xaangi buugiisa uu ku sheegay dalkii udug uu leeyahay sanaag qaybo kamid ah waxaa laga helay aathar muujinaysa in Soomaalida hore ay lahaayeen far qoran laakiin baabacday markay deegaanka ay ku joogeen ay ka tageen. marka laga soo tago farta Soomaali qoran waxaa ugu horeeyay oo la hayaa kuwa ku qoran Carabi oo dadku ugu horeeyay ee qor ay kamid ah Sheekh Aways Albaraawi oo ku noolaa magaalada Baraawo Ciraaq oo aaday waxbarasho wadaad caan ah oo ahaa mar dambana ku baxay gacantii Sheekh Aways Albaraawi wuxuu ku baxay gacanta daraawiishta sayidkii asigoo dhulkan gada xirtiisii lagu baabiyay sida hadda gaalka ay ka dhacdo kale inta la wada qalay asigii xirtiisii halkaas ay ku baabeen. marka Sheekh Baraawi waxaa qoraalka ugu horeeyay oo qoran oo af Soomaali ku qoran Carabi markaas la hayaa. kadib way jireen dadaalo badan oo la galay. marka baaritaan aan intaan sameynayay sheeko Soomaali qoran oo af Soomaali Carabi ku qoran ma arkin, laakiin waxaan arkay sheeko Soomaali ku qoran Latiin inta aan la qorin farta Soomaaliga 1955 liirad Muuse Galaal buug uu qoray liirad Xikmad Soomaali asiga waxaa isla diyaariyay Underwisk macallin Kuush oo daraasad badan geliyay suugaanta Soomaalida iyo abaabulkeeda. buug isla qoran liirad Xikmad Soomaali oo uu Underwiskin uu u turjumay af Ingiriis, laakiin sheekooyin muqtadafaad ah oo uu soo qaatay oo qaarkood sheekooyin hidaha ay yihiin qaarkoodna uu alifay Muuse Galaal laftigiisa ay ku jiraan. sheekooyinkaas sheekada ugu xiisaha badan oo asleeyahay si ula jaan qaadi karta suugaanta casriga ah waa sheeko la yiraahdo faaliyihii la bilkeeday oo buugaas uu ku qoray. waxaan jeclaan lahaa qof walba haddii uu helayo inuu buugaas Xikmad Soomaali internetka dii la geliyo PDF waa laga helaa inuu sheekadaas uu akhriyo. farta ay ku qornayd waa far Laatinka
hadda aan naqaanay bactaaja oo laga yaabo xarfo gaar ah inay ka duwaneed oo tusaalahaan xa'doo kale laga yaabo inay ahayd ha maanafay si taxana ayay waxay u soo bixi jirtay wargeyska xijigta Oktoobar marka maxamed daahir afraxoon sheekaysanay wuxuu iga sheekay sheekada iyo habka uu qori jiray waxaa subaxii waxaan dhigan jiray iskuul marka iskuul ka soo baxo duhurkii ayaan waxaan sameyn jiray habeenkan sheekada soo qoraa oo dhahay biri dambe sheekada soo baxayso habeenka aan soo qoraa markii aan soo qoro subax markaan iskuul ka baxano warqadihii watan soo qaadaa waxaan u geey jiray islaan joogta kaaraan oo karaana ahayd oo taybka ayadaa qorays markay qorto kadib aan intaan soo qaado ayaan xafiiska xiddigta Oktoobar geyn jiray sheekadii sidaas ku qormatay waxay noqotay sheekooyinka ugu xiisaha badan markii la yiraahdo sheeko faneedka dheer ee Soomaalida waxaa jiray ayaan daran uu qoray Cabdullaahi Sheekh Xuseen waxaa jiray sheekadeeda warsame iyo waasuge oo uu qoray Kadare oo ah runtii sheeko xiisaheeda gaarka ah leh aan kula talinayo qof kasta inuu akhriyo sheekada adeegto oo sheekooyinka Soomaalida xiisaha gaarka leh Maxmed Xaaji Cismaan uu qoray kuwaas waxay ahaayeen xilligii dowladooga laakiin burburkii kadib xataa sheekooyinkaas ugu badan wixii la qoray xilligii ugu horeysay af Soomaaliga la qoray wixii ka dambeeyay sideetameedkii sheekooyin nuxur leh oo Soomaali ah oo af Soomaali ku qoran sheeko faneeda Soomaali bixin aniga marka burbur kadib sheekooyin soo bax way jiraan sida sheekada roge iyo sheekada aanadi nageeyay oo shakhsiyan aan u aqoonsanahay taa sheeko faneedka hogaaminaysa sheekooyinka Soomaalida markii burburka dowladda dhexe uu dhacay kadib marka sheeko faneedada Soomaalida si guud waxaan leeyahay markii loo fiiriyo kuwa suugaanta casriga ah si guud way gaabiyaan markii farqu tiris way sheekooyinka la soo xasuusan karo marka hadda la yiraahdo sheeko sheek oo dowladdu waxa laga yaabaa inay bursan tahay 8 sano oo kale 8 sano hal sheeko in amba laba sheeko in la haayo sheekooyinkan lahayn taasna waxay qayb ka tahay burburka guud ee bulshada ku dhacay marka heerarkaas ayay sheeko faneedka Soomaalida soo martay marka hal su'aal ayaa meeshan ka dhalanaysa oo ah okay waqtiga dhamaaday leeyahay marka sheeko faneedka Soomaalida si guud heerarkaas ay suugaan Soomaalidu ay soo mareen marka waxay u baahan tahay in boorka laga jafo oo la helo dhalinyaro badan oo u istaagto dhacdooyin badan oo runtii xiiso leh ayaa dhacay